المنبثق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. نروي للكون حكايتنا إن ننشر أثوابا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي وإخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتا إسلامك كدب، وحانو مانتا أبلا السنين إنا نكهد الله محاضرة دي عنوان كيدو أها يان قرسدا قيبتو دي هوري أنو قال لي، وحان هوري قال لي يان كقرسدا هدي أنا هاي جمد رجا يان كقرسدا ninka aan ka guursado muuqaalka uu yeelan karo, tilmaamaha uu yeelan karo, qaabka la doonayo inuu u dhaqmo oo ii dhaqo, taasi waa midii aan horay ooga soo hadalnay. waxaanu ku ballansanayn maanta muxaadarada qaybteedii labaad oo ahayd yaan ka guursadaa dumarka. gabadha aan guursanayo muuqaal noocee abay leedahay, tilmaamaheen ku dooran karaa gabadha muslimadda ah. haddaan ahay ninkii, waxaan oga dan lahaa muxaadaradan iyo tii horaba inuu ninku garto, gabadhu garato shaksiga ay jeceshahay in ay la noolaato ama la noolaado. ogama jeedo laba arrimood. ogama jeedo aniga muxaadirka ah ee muxaadarada dhigaya inaan ragga ka fiicnahay, ka wanaagsanahay, ogama jeedo. bal waxaan aaminsanahay ragga kuwa ugu liita inaan ku jiro. midda labaad, ogama jeedo dadku inay tilmaamaha aan sheegnay oo dhan inay wada leeyihiin, oo ogama jeedo ninka tilmaamaha aan horey usoo tilmaamay oo keli aan laga helay baan gabar haddaan ahay guursanaya, ama ninku tilmaamaha aan tilmaamayno gabadhan laga helay oo keli abaan guursanayaa. laysa macna haada. ujeeddadu waa isku dhiirigelin shaksiga wanaagsan, nolosha wanaagsan, qaabkay ku fiican tahay baanu tilmaami. qofka hela oo isku hela barwaaqada waa alxamdu lilah. qofka waayana waa imtixaana inuu ku sabro ayaa laga doonayaa, ama qaybaha qayb ka mida inuu helo. inta ugu muhiimsan diin iyo akhlaaqda ugu muhiimsan. labadaa kelimo inaan saa u tilmaamo waa laga maarmaan. haddii aan u gudbo mawduuca, sidii aan horayba ooga hadlay ragga, qaabka bositifeka ahee wanaagsan iyo sida la doonayo umaan tilmaamaynaa inta badan, ee ma tilmaamayno waxyaalaha salbiga ah, ma tilmaamayno mar walbaba, laakiin sida fiicnayd baan u tilmaamaynaa in sha allahu tacaala. waxaan leenahay awalan
marka koowaad gabadha wiilka muslimka ihi muxuu ku dooranayaa gabadhuu doonayo inuu guursado waxaa jirta jawaabaan horay u bixinay addiinu waalkhuluq shareecadaa dhigtay arrintaa ayada ah arrintaa waa loo kala kici kari waaye arrintaasi waa lagaba maarmaan addiinu waalkhuluq yaquulu sala allahu calayhi wasalam tunkaxu almar'atu liarbac haweenayda la guursanayo raggu 4 arrimood bay ugu xishaan waxaa ka mid ahaa fadfar bidaati diin war gabadha diintana qabo war gabadha diintana yan ku dhaafin diinta hadday u raacdo akhlaaqna kaba daran geed dheer iyo geed gaaban midkaad u fuushaba gabadh diin iyo akhlaaq layan ku dhaafin diinteedu rabbi bay ku xidhi adigana way kugu xidhi wax rabbi ku xidhanna way kuu dhani jidhkeeday ilaalini war gabadh diin le ku dhegto akhlaaqdeedana qaabka ay ummadda kula dhaqmi lahayd oo ay adiga kugula dhaqmi lahayd oy awlaaddaada ku dhaqmi lahayd ayay akhlaaqduna ka sheekaynaysaa addiinu waalkhuluq taas ayaa lagu dooranayaa gabadha aad dooranaysa labadaa waa inaad ku doorataa ayuha zawj gabadha aad dooranaysa waa inaad labadaa ku doorataa horaya maxaan u nidhi gabadhu ninkay dooranaysa waa inay diin ku doorataa doorashada kadib gabadha qiimaha badan ee qaaligi ihi waa midda doorata ama garata waxay guursanayso waxaan guursanayo waa max ama ninku waa inuu garto gabadhuu guursanayo waxaan oga jeedaa gabadhuu guursanayahay waxaan oga danlee gabadha wanaagsan waa gabadha meherkeedu uu yariya gabadha wanaagsan waa gabadha dhisitaanka gurigeeda marka la dhisayo uu dhib yaryahay waa gabadha aan ninkeeda culays ninkay rabto inay guursato wuxuusan qaadi karin aan ku kallifin taa dooraniyo shukaansiga horaadna ku kala saari kartaa maalintay ku dhahdo waxaan doonayaa suun dahaba sariir rumuud kontarool lagu kicinayo iyo huteel aroos huteel lagu dhigo iyo maalintii cilaansaarka iyo maalintay raggu qadaynayeen iyo labada habeennimo dumarku markay isu imaanhayeen iyo maalintii dhalinyarada iyo maalintii toddobaadbaxa yaa subxaana allah waxaad moodaa inuu ninkii bangi fadhiyo uu asagu leeyahay kolbana intuu doono uu ka soo qaadanayo shukaansiga hore ayaabad ku garan gabadha qiimaha badan ee garanaysa cidday guursanayso gabdhaha qaarna waxay guursadaan rag qaarna waxay guursadaan alaab iyo qalab iyo magac iyo ha lagaa sheego gabadha aad guursanayso waa inay noqoto gabadha fiicani waa gabadha kharashka yar nabigaana yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadh warba gabadhay ka kharash yar tahay oy ka meher yar tahay ayay ka fiican tahay buu nabigu yidhi waxaa idinku fiican kuwiina ugu meherka yar ee meherhooda uu kooban yahay ee dhaqaalahooda uu kooban yahay kuwaas baa idinku fiican buu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam haddii aad gabdho tihiin ragow gabdhaha waa inaad reesataan oo doonataan waxaa gabadhan lagu doortaa ayuha zawj oo gabadha aad ku dooranaysaa tilmaamaha aanu soo sheegnay adigoo ka duulaya gabadh warba gabadha ay ka aaminsan tahay gabadhu waa inay tahay aaminad mukhlisa mutiica lizawjiha gabadhu waa inay tahay gabadh diinteeda garanaysa oo ilaahay ka baqaysa subxaanahu jalla wacala gabadh ilaahay ka baqaysa waa waxyaabaha wax lagu doorto wey taadu diin iyo khuluq waana inay tahay gabadh garanaysa qiimaha guurka maxaa looga jeedaa waa gabadh garanaysa qiimaha guurka waxaad xusuusataan inaan raggii markaan ka soo hadlaynay aanu nidhi waa gabadh rabbigeed
وأن ربك كحمد سبحانه وتعالى أول بدي وحكدنا الحمد لله وترى قبضا محمد بقلان أيضنا الحمد لله نعم أيضنا والحمد لله إلهي كساري قبض نمدي والنعمة وين أصاري أيضنا قبض النوع عاصه ربي يتكو حمديسة ربي يتكو شكريسة بندي قونئة إيرادة قونئة أيا كبك دونا بإذن الله سبحانه جل وعلا قبض قيمها بضن وقبض من كذا فرح جليس مركو فيري سيدة النبي صلى الله عليه وسلم هوان وحا أوفي عن مدى من كذا مركو أرك فرح جليس أركتي هذا يموقال كذا قصر كذا يموصوت كذا لبس كذا يدرحل شر معمل وناج كذا يستودوين كذا عرفت كذا يدقون كذا مرأة لمركو إشتا كدفتو إنو قلبه قعد هانا دونيا أو كشك تروا أيدي ملائكتي يا قروح بدن الله ونكسنا أو قروح بدنا أو هذا المعانا أو في عنا أو أسترنا أو حشاد بدنا أو عرف بدنا أو انتم معانا أو قبل ونكسنا يرضنا لك دونيا قبض النوع ننكادو وغسو دوادو قلبي سفرح انت دنجلسة ايا قبر اوغو خير بدنه اوغو في عره ورنيه قبضها كدبال ايها الزوج فعليك بها قبضها سيكا بحصني كدك مدق يبدح لها وقد دقاقي تصر ويفرح جاينيس الزوج كذا ولما ظاهرا وباطلا حاجة قدها عقيدة طاعة إخلاصك بعد نمضة خيرك حبك يتشعيلك أي قلبك كويسو الله أي أوهيسو نبي أوهيسو صلى الله عليه وسلم مسلمين أوهيسو ثم أصل أوهيسو حاجة داخلك إيا قلبك حبي يتشعيل بكبوح حاجة باب ما قدها حاجة بنانك وحاكم وقرية وحين دهاجة إيا سنكاجة إيا وحاسو نمبا قلبي أقود بيه أو كو فرح قليل إذن قبض الدور ميس وذات الدين ومد كل شكرية يسزوج كذا النعم كو أقري ومد مركب في رسكو فرح قليل يسا ومد مهر كيدو إيا أروس كيدو وآدي آدو وأفرديه سيدي وكلها نك الذي شري شعبي مركو قبضي عروسي وكيكو يري محالي هذا الله أكبر والله يا قبضي مرة لمركي قرية اللون جليي وكيت انتو قعنت كتايي لمرك على المركي قلاشي سكتو كتي كدب وكي يري بلو كاري وكي كتي marka waa tii khudbada aqrina dheer maxaa jeceshahay maxaa micantahay gadaal bay nooga imaan doontaa biidnillahi caza wajal waxaanu nidhi gabadhu waa inay tahay gabadh mukhlisada faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah saalixaadka gabdhaha wan wanaagsan إلهي أخشوعيا إلهي وحكوت المامية إليهين كو إلالنا يتشركوضا مركو ننكو مقايا هي مركو توغا انتبا أولاد ودنا حزبنا يا مال كانوا حزبنا يا الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قبض قيمها بدني وقبض الزوج كيدا مقشأ أطيعه قبضا كدلال نبي صلى الله عليه وسلم أصدر قبله الله يواكيك يري فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك حاس ملاذا هلبو النبي وكيري قبض حاجة يدن أطمن إلي ويديسته وقبضا من ملاذا هاي
markaasay waxay tidhi haa waan leeyahay markaasuu wuxuu yidhi ka warran seed ku tahay waxay tidhi kama cajiso oo kama gaabiyo inta ay tabartaydu tahay waan dhaqaaleeyaa fandurii ayna anti minhu fa innamaa huwa jannatuki wa naaruki meesha aad ka taagan tahay eeg waa jannadaadi ama naartaadi wey ama jannaad ku geli ama naar baad ku geli gabadhaas waya gabadha wanaagsane ninka waxaa laga doonayaa gabadha tilmaantaana inuu ku dadaalo nabigu calayhi salaatu wassalaam asagoo tilmaamaya gabdhuhu xaqan lagu leeyahay wuxuu yidhi haddaan qof amri lahaa inuu qof kale u sujuudo waxaan amri lahaa haweenaydu inay ninkeeda u sujuudo xuquuqda lagu leeyahay weynankeeda gabadhaas waya gabadha la doonaya xaqaa garanaysa inuu ninku ku dadaalo bal waxaan leenahay gabadhu inay tahay mid ilaahayna ku xidhan ninkeedana maqasha waa waxa gabadhi lagu doorto idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat baclaha ninkeedana ateecda cibaadaadkaana la timaada marka gabadha zawjkeedana ateecda cibaadaadkaana la timaada gabadhaa weeye gabadha miisaaniga ah ama gabadha qiimaha badan ee la doonayo inuu ninku uu ku dadaalo ninku inuu ku dadaalo waa sax inuu gabadha qiimaha badan caqli iyo wanaag intaba isku darsatay haddee sida ay gabadha wanaagsani ay ninkeeda u ateecayso qisas badan bay leedahay laakiin hal qiso ayaa nagaga filan ninka la yidhaahdo ashacbi ayaa wuxuu shurayx ibn alxaaris alqaadi ayaa wuxuu ku yidhi calayka yaa shacbiy waxaa dhahaya shurayx baa dhahaya shacbiyow ku dadaal gabdhaha reer bani tamiim waa gabdho caqli badan tayib qisadu maxay tahay maalin baan jinaaso raacay buu yidhi qof dhintay kadib markaan ka soo laabannay ayaa waxaan soo maray buu yidhi dad meel degan se guryaha hortooda waxaa taagan qof dumar ah oo weyn iyo gabar yar gabadhaan arka midda ugu quruxsan bay ahayd buu leehay waan ku leexday hallay waraabiyo ayaan ku idhi wax oona oo ihayayna ma jiro laakiin gabadhan baan doonaya bal inaan u dhowaado oon xaalkeeda ogaado in la qabiyo in kale markaasaa wuxuu yidhi waan islaantii baa waxay tidhi na orodoo ninka biyo iyo caani iyo bal wuxuunu keen intay maqnayd baan islaantii waraystay waxaan idhi buu yidhi isgabadhan ma la qabaa markaasay waxay tidhi maya lama qabo kadib baan bilaabay buu yidhi sidii aan gabadhan ola xidhiidhi lahaa muddo yar kadib gabadha ilaahay waa ii sahlay waa la ii guuriyey aqalkii baa la ii geliyey mar alle markii la ii geliyey 2 ragcadood baanu istaagay buuri assalaamu calaykum markaan idhi waaba gabadhii oo igu daba tukanaysa ayaan arkay buuri kadib baa waxaan damcay buu yidhi inaan nin iyo xaaskii wixii dhex mari jiray aan ka raadsada ayaan damcay markaase waxay tidhi buu yidhi bal u kaadi wax yar igu sil markaasaa waxay bilowday iftitaax inay bilowday ina alxamda lilah naxmaduh wanastaciinuh wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina halkaa ayay ka bilowday buu yidhi iftitaax kadib baa waxay bilowday inay dhahayso anigu iyo adiga aada isuma naqaan maxaad jeceshay inaad cunto maxaad ka cadhootaa maxaadan ka cadhoonin gabadhaas waya gabadha aanu doonayno een leeyahay dumarteen ka guursadaa waa gabadha cilmi iyo caqiido iyo mabda iyo noolaasho ku fikiraysa wey taacada waa qima fi taaca walidaalika baa wuxuu yidhi
gabadhii noocaas ahayd waxay ii dhibaatagelisay ku yidhi wakti aan khudbo iyo muxaadaro la dhigin muxaadaro bilaabo ku yidhi oo anaan dhaho in alxamdu lilaahi waxaasaan jeclahay waxaasaan necbahay waxaasaan jeclahay waxaasaan necbahay waxaasaan jeclahay waxaasaan necbahay habeen midii ugu fiicnayd baa waagu loo baryay buui sanad markii aanu sa ahayn ayaa hooyadeed noo timaaday buui isku soo duuduuba wuxuu leeyahay 21 sano ayaan qaday weligayna shayga meesha ka qaad iyo maxaad u dhigtay iskuguma aanan qabanin hal mar ayaa dhib yar dhacay oo anaa ka gardaraa buu leeyahay wuxuu yidhi bahalkan dabaqallooca la yidhahdo ama hingaralaha ayaa guriga soo dhex galay anigoo raba inaan dilaa salaadii la addimay kadibna digsi iyo wax lamidaan soo qaadoon ku gembiyey salaadii baan aaday bahalkiiba intuu furfurtay oo ka baxay meeshii ayuu islaantii qaniinay waa qima fi taaca qoyska la doonaya gabadha la doonaya qiimaha ay leedahay tasawur qiimo badan oo wanaagsan ayaad ka qaadanaysaa kitaabka la yidhahdo aadaabu zifaaf lishaykh naasir iddiin albani bal muqadimadiisa fiiri waad ka dhargaysaa biidni illaahi jala wacala kadalik gabadha aan doonayno waa gabadha ninkeeda la saaxiibta gabadha ninkeeda saaxiib ka dhigata gabadha ninkeeda aabba ka dhigata gabadha ninkeeda awow ka dhigata gabadha ninkeeda wiilkeedii oo weyn ka dhigata siday oola dhaqmayso iyo siday oola kabsamayso iyo siday oola ciyaarayso iyo sida ay sirteeda ugu sheeganayso waa inay noqoto gabadh ninkeeda la saaxiibayso gabadh ninkeeda la saaxiibayso waa inay noqoto oo soo dhawaysanayso haa nacam alsuxba laabudda min alsuxba waa inay gabadhu ninkeeda soo dhawaysato gabadha aan doonaynaa waa gabadha qiimaha iyo suxbada iskala wey gabadha aan rabow ayuha arajul gabadha aan rabto inaad guursato waa gabadha ku tilmaaman qanaacada qanaaco waa maxay waa gabadha wixii la siiyo ku raalli noqonaysa waa gabadha quruxdu alla siiyeyna alxamdu lilah diintuu alla siiyey alxamdu lilah ninkuu alla siiyey alxamdu lilah awlaadu alla siiyey alxamdu lilah guribuu alla siiyey alxamdu lilah qismi iyo qayb wixii loo siiyey raalli ku qanuuca la yidhahdo waa gabarh ku qanacsan wuxuu alla siiyey subxaanahu wa tacaala gabadhaa waya gabadhaan ragow doonayna inaan u tartanno haweenka nabiga calayhi salaatu wassalaam gooray xoogaa ka sheegteen dhaqaalo xumo oo ay dhaheen rasuul allahu noo waasici qur'aan baa soo degay yaa nisaaa annabiyi in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiila haddaad xoole iyo dhalalaalkeed rabtaan dalqadihiina qaata wain kuntunna turidna allaha warasuulah waddaara alaakhira haddaad alle iyo rasuul iyo aakhare jeceshihiinna ilaahay jannu idiin diyaariyey ee adduunyada ku sabra gabadhu waa inay tahay gabadh qanuucada gabadh qanaaco badan oo ku qancaysa maa qasamahu allahu laha wuxuu alle u qaybiyey oo qayb alle u siiyey waa inay leedahay anigaaba dadka ugu fiican ugu wanaagsan wuxuu alle i siiyey subxaanahu jala wacala nacam gabadhu waa inay tahay gabadh qanaaco badan gabadh qanaaco badan saciid binu caamir aljumaxi xaaskiisii iyo islaantiisii goorta xoolo loo keenay saciid binu caamir aljumaxi ayaa wuxuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun islaantii baa soo booday waxay tidhi ma muslimiin madaxweynihii muslimiintaa la laayay yaa la dilay maya wax ka weyn baa yaa jira buy ma muslimiintii baa dagaal lagu jebiyo waa laga adkaaday maya wax ka weyn baa jira buy maxaa ka weyn dakhalad calaya addunya buy adduunye ayaa ii soo gashay litufsida aakhiratii si ay aakhiradayda u fasaadiso anigiyo adigana maantaaba khilaaf noogu horraysa markay adduunye iyo xoolo timaado maxay tidhi gabadhii waxay tidhi shayga aakharada naga fasahaadinaya anigii iyo adigoo isjecellana kala kaxaynaya
هذا كتخلص وقناعة قناعة قريه نرجع صدح بلاد إيا زيادة قبل الاشي يشرين قناعة وقناعة قبل ويلة قبل قناعة في عن ووحو التي يكوكا عيسى وقبل لدون يرقوا إلي أتر تمام كذلك راحة القلب قبل قلبي قاقر راحة جريليسة أو أيضا ضب النحاريس عطاء قعنت يدوى النحاريس عنطر يدوى النحاريس قبش يدوى النحاريس قصر كيدوى النحاريس والنحاريس أيضا بقى كيدوى ضب النحاريس أمر كيدوى النحاريس سدوين تيلا النحاريس سبوتين تيلا النحاريس أيضا وحقبت كيدوى ضب النحاريس قبل نحاريس بدن أو تواضع بدن أو قلب غيره ودقيه أو قلب غيره إيمان كبوحه أو شعيل كبوحه قدرني احترام كبوحه قبل دون إنه وقبناوي إلى أترتنيه قبل دون إلى القبط وقبناوي قبل دون إلى كناف وقبناوي قبل التلمامة إلى رئيس وقبناوي قبل راحة القلب قبل والولي والبهار بدن كتشرين أو قلب غير الدقية أو حمناه الدقيهين أو أيضا دنب الدقل أو أيضا دنب التأني يترتيب يحلمي يدلقات كسا ليسا قبدا ويرهنوا قبدا دون أترتم قبدا دون إلى أترتماي وقبدا قرنا يستجدد الحياة نورش يقابك الله كلا بدبدلو نورش قابك اللو عسبونيسيو نورش قابك اللو عسبونيسيو حضرك وين عسبونيسيا او قبش وين عسبونيسيا او فدق وين عسبونيسيا او داها وين عسبونيسيا او قلبك وين عسبونيسيا او حبك يشعلك وين عسبونيسيا شركة قال عسبونيسيا تجدد الحياة راشين كان لك لبدلا راشين كان عسبونيسيا هذا نقطة شرك إيا قلبك إيا قريك إيا راشنك عبادة طاعة حبك وحاصلا تجدد الحياة دليلنا قبضنا نوعا ويا قبضنا لدونا يرغوا إلى أترتنفان قبضنا لنا تجدد الحياة قبضنا نورشة كلبدشة تاسي معناها بماها قبضنا إلى إسراف بلنت وقبضا كامل دونوي قبضنا إلى إسراف بلنت معها لكن وحان كودنا قبضنا وإلينا نورشة الروتين إسكاهين شيء هل ميل أنتاجا وين إسكاهين قبضنا نورشة كلبدلي كرتا قلبا قاب هر لأو سمين كرتا قلبا هر لأو اقتراح قبضنا وين إليه قبضنا وإلي تفكر لنا وإلي أفكر تإلي وحبدلي كرتا قبضنا وهي قبضنا دونينا إلى أنكو فكر النوم قبضنا دونينا وقبضنا كرتا تقولك فردقا يقولك تشيك هذا هو الشيء له قولك فردقا يقولك تشيك قبضنا كرتا سوي وحاو نحي محاو نحي يقولك تشيك يقولك فردقا وحوين باو نحي قولك فردقا وحاو الله تلقلي إن لغو الشيكيستو وحفيز دولدا لغا حكما ولغو ولهد الله ولغو النقاشا وحي خلدن با لغو توسيا وحي توسن با لغو سيكبعيا وحاويا واميل لغو عنتيو واميل لغو قابل مرتدة ودولدي يحفيز كيدوي ساوى إلي أفهم سنتهي قبض قولك تشيفك تشقوين كلا الله تلقلي قولك تشيفك وحا الله تلقلي إن شركو كن نست أو قلبي كن نست أو مسكحدو كن نستو أو دالكي ما أنت أو دلق قبحو أو لغبقف نارشار ميشا أو غمي إنسان إلي قولك تشيفك نغتال دونيا قفكو مركو قلبي رالي كيه شركة كيسة انتي سكرنا رالي كيه هذا سو راحة ميشا أغدا بيسمعها هاو الراحة ميشا أغدا بيسمعها هل كاسي وحان أغد شيدا
si aan far waaweyn halka ugu qoro waxaan diidayaa qolka hurdada inuu xafiiskii loo raro wayna dhacdaa marar badan haddii la kala garan waayo qolka xafiiska iyo qolka jiifka waa adoo kala garan waayo musqusha iyo jikada oo yidhi musqusha baan cunto ku karinaya waxaan diidayo waxaa weeye in xafiiskii laga dhigo qolka hurdada oo halkaa lagu murmo oo lagu wada hadlo oo dhabarka laysu jeediyo middaan diidaya waa midda taan doonayana waxaa weeye in qolka fadhigana la garto waxa loogu talagalay qolka hurdadana la garto wixii loogu talagalay qurfatu nawm oo qolob aad muhiim ah wey gabadha wanaagsan ee caaqilada ah ee aanu doonayno waa gabadha ninkeeda si qiimo badan u qaabisha qaabilitaanku qaybo u qaybsamaa qaabilitaan qalbi ah qaabilitaan jirka ah qaabilitaan cunto ah qaabilitaan qosala muusooda hadal macaan ayaa la doonayaa gabadhu inay ku qaabisho zawjkeeda gabadhaanu doonayno waa gabadha aan keligeed iska soo cunin cuntada ninkana keligeed aan cuntada siinin gabadhaanu doonayno waa gabadha zawjkeeda gacanteeda cuntada ku siisa wey ayadoo weliba u qoslaysa ayadoo weliba u muusoonaysa ayadoo weliba dharka ay ugu labisan tahay midka ugu sarreeyee gurigeeda yaalla cadarka ay marsan tahay midka ugu idgoonee gurigeeda yaalla qaabkay u taallo qaabka ugu qiimo badan inuu yahay waxa aan sheegayno iskama lihin kulli nusuus bay leedahay waxaad garanaysaan gabadhi la dhihi jiray umu sulaym ee talxa uu qabay ee guursaday haddaad qisadeeda aqridaan waxaad dareemaysaan macaankan hadda idiin sheegayo weliba cajaa'ibta ay leedahay gabadhaas ayada ihii ayadoo weliba wiilkeedii uu meyd yahay ayay zawjkeedii isu qurxisay markaasay weliba casho u samaysay markaasay weliba qaabishay oo soo dhowaysay markaasay cuntadii siisay ilaa ay gaadhay inay gogol wada tagaan gabadhaanu doonayno waa gabadha ragow gabadhaasu iyo gabadhaan rabno gabadhaanu doonayno waa gabadha taas yaan lagaaga hormarin taas ku dheg gabadhaanu doonayno waa gabadha leh waxa loo yaqaano qaabka ugu wanaagsan ee ugu fiican gabadha xoolaheeda u maamusha waxaan diidaynaa gabadhu inay mubadiro noqoto dahabaa dubay laga keenay ee guriga bedel dahabkan baa la keenay ee dayn ku soo qaado waaba ribo dukaan baa soo jebiyey maxaliya fadhiga soo qaado tv cusub baa soo baxaya soo qaado ninkii culays iyo dayn aan la qaadi karin gabadhaanu doonayna waa gabadha ugu kharash yar wey waa gabadha tasarufka qiimaha badan reerkeeda u maamulaysa wey gabadhaa weeye gabadhaanu u baahannahay gabadha la doonayo qiimaha badani ee la doonayo raggu inay ku dadaalaan waa gabadha ninkeeda sirteeda maya sirteeda maya sirta may sirta lama bixinayo ifshaau sirta in la bixiyaayo maya sirta in la bixiya lama ogolo dabcan rag iyo dumarba guriga waxa dhexdiisa yaalla waa sir gobashu waa sir raashinku waa sir guriga waxa dhexdiisa yaallo dhan waa sir gabadhu waa inayna sirta bixinin heblaayaan darisnahay tanaan qaraabanahay maya gabadha qiimaha badan waa midda sirteeda ilaalisa likulli imri'in ya umma amrin tabiicatun wa tafdiilu maa bayna alrijaali taba'icu falaa yasmacan sirii wa siruka taalithun alaa kullu sirin jaawaza ithnayni daa'icu وكيف يشيء القلب سرا
وفوقه حجاب وما فوق الحجاب الأضالع يا أم عمرو قبض أم عمرو ليلانوي قفر بطلع عدقوا لأبو له ذكنا وحالقوك لسارا طبيعة سرت إذا إيا سرت هذا قصة بحال يسمقلي سرت إذا إيا سرت مجد حيث قصة بحال يسمقلي سرت لوقف بافتو سدح قاداي خلاص ودما إلا إلى ضرورة وين تبادل موين سرت وحالقوك يا سدح نوع وهو خطرتن أفكر إن لغا شيغو إيوه إنا سربيبتو أو وحي أدقون صح أشيغين إنا القاب لو فهمي كان أشيغ إيوه إن وجهي قبل لغا قرتو وجهي قبل لغا قرتو سرت إلا إلالي وقضب مهين جدا ورقبتها قيمها بدل قالقة وحيالها نقول يقانوي بحاكو دورينا قبضها ونكتن قبضها أنقول سنة إنه maxaan dooraynaa gabadh hadal gaaban oo codkeeda iyo qayladeeda deriska laga maqlaynin gabadh cod gaaban oo ninkeeda aan ku qaynaynin goorta ay doonayso ninkeeda inay wax u sheegto ayadoo aad u xishoomaysa oo indhaha hoos u foorarinaysa bay ninkeeda la hadlaysaa maxaa yeelay qiimaha uu ugu fadhiyay taqaanaa qiimaha uu ninkan u leeyahay taqaanaa saas daraaddeed ayaa abibakar baa u yimid wuxuu rabay inuu u yimaado nabiga iyo caaisha radiallahu tacaala canha kadib wuxuu ku soo hagaagay caaisho oo kor u qaadaysa codkeeda abibakar wuu soo baxay asagoo cadhaysan wuxuuna yidhi yaa caaisha kayfa yaa caaisha gabadha la yidhahdo caaishay maxaad codkaaga kor ugu qaadaysaa nabiga sala allahu calayh waali wasalam محاد عدكانا كر أبو قاديسا عائشة رضي الله تعالى عنها مركا محي عائشة لهي والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي إليه وحانو غالي آباي علي إلى علي كتعش علي مركا وهو علي بن أبي طالب آباي أو أبي بكر إيا علي بن أبي طالب وحانو غالي إلى علي كتعش markaasuu intuu yimid ayuu bahal irbaaxaa ku dhufan gaaray kor buu gacanta ugu qaaday abubakar wuxuu yidhi araaki tarfaciina sawtaki calaa rasuuli illah waxaan arkaa inaad codkaaga kor ugu qaadayso nabigaa ka qabtay marka calayhi salaatu wasalaam abibakar oo aad u xanaaqsan abibakar marka waa tegey nabigu caaisha intuu la kaftay u yidhi yaa caaisha kayfa ra'ayti أنقذتك من الرجل كورا منك سانك أجبت بادي أبيض بكورا كورا سيدا أنك أجبت بادي منك أبي بكر مركا وحودي دنا إن كورا يبقى بعائشة نبي عليه الصلاة والسلام ساسرابي جبت قيمة بدن ونكسن حال لبقى تاون كدورنا أيها الرجال أو أيها الرجل بل أنفيرنه من غير بادية oo yidhi gabadh midda ugu fiican baa tilmaamaya wuxuu yidhi waa gabadha ugu run badan hadday rabto inay hadasho runley waa gabadha ugu dulqaad badan hadday xanaaqdo way dulqaadanaysaa waa gabadha hadday qoslaysana ilkaha un caddaysa oo aan dhagtada deriska laga maqan haddii ay qoslayso way muusoonaysaa ilkaha un bay caddayn وإذا صنعت شيئا جودت هذي دمعنا إلي وحقبتنا سيدا أغفي عن بي وحوقبا ومدى منك إذا أطيع نبوي ومدى قرق إذا أنكبح إلا ضرورا موهين سيدو أليه وقرنا في بيوتكن وقبضنا ذاتك أولا اكتن أيضا إسلالي لتوي وأيضا وقبض تواضع بدل وإسلالي لته لكن dadkana way qadarisa oo way qiimaysa waa gabadha ninkeeda isjeclaysiisa ee dhalmada badan gabadha arrimaheeda oo dhan markii la soo koobo wuxuu yidhi wa kullu amriha mahmuud amarkeeda oo dhan waa mid la mahadiyey oo waa mid fiican buu yidhi waxaa tilmaamayaa
نمر بادية يا سلمامي قبض أن تأله أن طلبينه الرغو إلى قبطان للدرانيو وقبض قارت أي وحي الحراق رغا آمين كده كليتك كل جينا إفر عندهم ومشكلة صوبة خيركم انتو الإسلام كرئينو الإسلام واسح بل وحال دونيا كلمة طيبة قبضوا كلمة طيبة الكلمة طيبة صدقة كلمة ولا سواء صدقة محاودي إلي قبضوا إلى الدهض يا زوجي يا حبيبي يا غالي قبضها ربنا قبضها منك إذا كنا يا حبيبي الغالي يا زوجي الغالي يا قرة عيني قبضها دوننا وقبضها قبرك حشونا يسوى إلي منك إذا مقعي ساعة ولا بينا وكيلنا الأول وحاضر يا حبيبي إلى الدهض وصاص وقبضها منك إذا كنت قصفين تلقبي وحلو يقانو إفر قبضها عنده هو قبضها ندونينه هذا ضرورة وعسلاتي ومثلت دوني أغادا هذا وحانو كاميا قبضها قيمة بدنا ونكسن وحلق دونيو ربنا قبضها لدوني دورتا ومداوي ينقول سنة دمرك حقورا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقبضت هذه ديبا كشيء دون الحمد لله لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه قبل إلهي مفيريو هويني إلهي مفيريو ننك هذا النعمة هذا عن كل شكريين أيضا كم مارمين ننك وباهي وقبتا قبلنا ننك هذا النعمة هذا نعمة كل شكريين قبلنا إلهي مفيريو ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مركا قبضه وقبضه من كذا نعمده الله أقلل أولاده الله كسيه قبض نعمده الله كساري وكلا ساري أسده قبضه كل شكر ده قبضه سي وقبضه لدون يوم إلى نفعله قبضه قيمها بضن شرفت بضن وقبضه من كذا كوكا ما يسويه خير أو دعوة سيدة عائشة خديجة النبي الملكي أو غير حيراء كستو بحيو وهو الرمي واتيجا أنت قبطي أوتل والله إنوسا إلهي كوهو جنين والله ما يخزيك الله أبدا ما كوهو جنين محاد عي مركاتي وحيت لسوحو وناق لها مركا قبدا وناق سني وقبدا وناق تريسة حمان ترى قريسة عائشة وخديجة وحيتري إلهي كمه جني والله إنك لا يخزيك الله أبدا محايا لي قرارا الحليل ساعة مركنا واسود ويسا قبك لباسا قبستنا لباسنا أياتك الميساء أيتي انت صائر يا أنا الكلمات أيي إصدب لكتي قبدا ليلة خديجة رضي الله تعالى عنها خلاصة إيا موضوع جمدي سمركنا صوار ورياي قبدا لدول إيو رقوا إلي كود دالان وقبدا قيمة إيا قالي ماشي كجادي مركا لغفي رياي قلبي قادنا إلهي كحبي واجبك لولا هانا كسر بحضي عدة إلهي مسؤولك وغدا قينا الرالي الجليسي وحو أن لسيينا التربية وناكسن سيسي وحي لسيينا قاب وناكسن ويسئماشو قبدا ويا قبدا لدوني إن لقد دلاله فالله عز وجل إلهي وحاول جيسنينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه قبضها يجا وناجيه طريقة وناكسن أوتصه قريها يجنا وناجيه قريها يجنا توسيه لباتوينك يا خلاف كتشوكتدا أنا إلهي ونقصي قاضه انت أسوء الله برئة أيام اللوي دي سنينا سبحانه جل وعلا أما كلمة ليدو انت أيانكو سوكوبي أو أنكو ختمي رجل الضمر بهد مالين
قرآنك يا دروس هلا أقرسو مساجدنا يا خيرك هلا تغو حقوق الاسكولة يا هلا أقريو هلا يسو تنازلو هلا يسو صبرو هذا المعاني هلا يسكولا دقمو حبيبي يا حبيبتي هلا يسبهو عرورتنا هلا ولا تربييستو وحي مكعانا هلا قولا شقيو ربنا هلا رالي قليو دينت ربنا هلا دلالو عبادتي يطاعدنا هلا قد دلالو آخرنا هلا حسوستو الدنيا نواوحا قيمة هينه قيمة أنتاسي هلا قد دلالو إلينا الدنيا أين قيمة هين علمنا هلا يسلبر سمر والبابا وعنكو ختمية منظومة أنشأ لهي أولا إلى المنظومة الهائية وأنشأ لهي إن لقدر أي قيس والبدراسيان بل الدنيا ماشا يكتشوكتو الدنيا قيمة حمريرة سي مر والبوي حسوستان منظومة أيانكو ختمي درسي لنا بإذن الله عز وجل منظومة وحال إلى المنظومة الهائية وحال إسكنه الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي وأنا لحي صدم بيت أدبر أتشعر الله رجل دعاء إلى مثلا منظومة إيا قبل إيا تحرا يركعه إلى مساجدنا كأغريان قيسسكنا أي أغريستان سي مرول بآخر أو حرمان الدنيا وحا قيمة لهين إلى سي أيوه قادان وحجر مؤلفكو ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعناء سريع تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا أنا أطلب سواها إنها لا وفاء لها فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل عمران وصورة فاطل وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنات الفردوس ارتويا لها ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها أولئك قوم آثروها فعوقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب الصم النقيع زلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضدها بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من نسيمها وزلالها
وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلاؤها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حدد الجار ربهم ودار خلود لهم لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرور موضونة ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيتهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فناء لها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتسكت ما بدا لها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافها لا عليها ولا لها فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه كلمة كوضا وأنفعه إنسان واهديو لابد لي أما ختامه مسك زوجك يا زوجنا ما دام النعمة بدنا نصو شاغني إلى يسكن نعميستان أو يسكن برواقودان أو إله يسكن دوادان إلى الدنيا أي تاي ميل علقونه سيدا درادة المنظومة أو ختمي إلى آخر خصوصتان الدنيا إلى قيمة لهين إلى أي قرتان المنظومة هذه الله صوكوه وحليهي أنجي الدنيا محايسك كايا جلي أنقل مئه متكررين وتشيدنا إذا ماشي عبودا بيسانا معها الدنيا لم يقول لي حالا يمئه مدحني ماذا الدنيا هو مد أفالح قرمون ودار تهمية إيا غمية إيا دالك بؤتان كذا وادوي هاي نكذا الدنيا لحولها بنان له آخر عريس بالله كل مياه متكي سفر أحسننا آخر الدنيا متكي سفر أحسننا آخر وحول كل مياه مرق الدنيا الفائدة يضعنا وخسار لما يسترنا ما بلهaba hadday adduunyada qososho in badan bar aakhira oo yidoonta hadii uu qof damco inuu adduunya daba galo maalin bay meel ilaa oo la tagaysa rabbiyo waxaan ku weydiisan anigii adduunya inaan kala xidho war ninka adduunyada dalbayo ee ku dadaalayo war jannada kaaga fiican ma talabtid meeqaar aragnay mid ku dadaalaya oo adduunyada u soconaya laakiin aan ku guulaysanin suuratul hadiid iyo suuratul yunus iyo suuratul kaafi waxaa ku sugan aayado cajaa'ib badan oo adduunyada dhaleecaynaya suuratu al-imraan wa suuratu faatir wa suuratu ghaafir wa suuratu al-ahqaaf waxaa ku sugan adduunyada aayado badan oo dhaleecaynaya adduunyada waxaa kamid ah axaadiis fara badan oo in laga dheeraado noo sheegaysa qolo ayaa fiirisay adduunyadii aragti fiican bay ku eegeen marka ma aynan kelinin mana ayna ku mashquulin sidoo kale kuwaas ayagii waa ilaahay dadkiisi waana xisbigiisi jannatul firdaws ayayna leeyihiin qolo kalena adduunyay u leexdeen jahli dahayo daraadi mar alla markay si fiican ugu xasileen adduunyadii baaba si fiican u joogatay oo waa la qarxiyey adduunyada oo dhan baa mataqaana hal mar ku soo baxday maalin baa laga sii qaaday qoladaa waxay doorteen adduunyadii bay doorteen waxayna khasaariyeen aakhiradoodii bay khasaariyeen waxaad ku dhahdaa nafta kuwa nafta adduunyada macaansanayo war xoogaa istartiibiya sun waxaan aad macaansanaysaan aakhira sun bay idinku noqon doontaa haddaad diidaan
iska ciyaara oo iska mashquula wixii idinla quban iskaga mashquula markaysan naftu dhuunta soo gaadho markaas ayaad garan doontaan maalinta naf walba lagu abaalmarin doono waxa ay kasbatay oo ay jeclaan doonto in carruur iyo maal waxay leedahay lagu furto maalinta ay soo bixi doonto adduunyada waxaad qarsanaysay iyo waxaad kor u qaadaysay iyo waxaad horumarsatay oo ficil iyo qowl ah kuwaasoo lagu qoray ay qoreen malaa'ig loo diray inay wax qoraan maalintaasoo ayna waxba taraynin inaad cudur daarato oo ninku wuxuu dhihi doonaa maalinta qiyaamo anu waxan ma samaynin markaasa intii afkii sharooto la mariyo alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum ayuu alla dhihi doonaa subxaanahu wa tacaala adduunyada wax alla waxaa soo shaqaysay aakharaad ogaan doontaa hadday faa'iide lahayd iyo hadday khasaaro lahayd hadday wanaag la timid oy cabsi la timid wanaag iyo jannay leedahay jannaad bay ku waari xuurriciin baa soo dhowayni jannaday say doonto ugu socon wax alla waxay doontana way cunaysaa wax alla waxay doontana way cabbi weliba intaa waxaa u dheer ilaahay bay arkaysaa subxaanahu wa tacaala ilaahay aragtidiisa nagama qadiyo ilaahay baa isu soo bixinaya ilaahay baa isu soo muujinaya markaasay arkayaan subxaanahu jalla wacalaa jannaad ayay leeyihiin ay ku waarayaan faakihaad bay leeyihiin ay indhaha ku qabowsanayaan webiyaal bay leeyihiin ay ku raaxaysanayaan sariiray leeyihiin ay ku seexanayaan barkimay leeyihiin aan la garanaynin noocay u yaallaan haddayse adduunyada aad ka faa'iidaysan weydo wallahi waa weyl oo waa khasaaro oo waa naar iyo mataqaanaa silsilado naarta jahanname la yidhaahdo ayaana mataqaanaa quwaaxaysa biyaha kulul ayaana lagu abaalmarin raashinkooduna waa qisliin haddii ay waxay caddaan doonaanna waa bimaa'in xamiim biyo kulul ay xididadu ay soo daadanayaan iyo mindhicirku ayaa lagu abaalmarinayaa waxa keli ah ay ku fikirayaan waxa weeyaan inay dhiman lahaayeen mana dhimanayaan gebagabada manduumadani dadku laba meelood unbay ku dambayn doonaan imaa janna wa imaa naar fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir asalu allaha caza wajal inuu intaa u nagu anfaco maanta kelimadeyni iyo labadii xalaqo halka ayaan ku daynaynaa wassalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatu